بسم الله saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan halkan maanta ku dul maro istiraatiijiyadda ugu fudud suuqa forex suuqa forex anigu shakhsiyan waxaan bilaabay inaan wax ka ogaado 2019 dabayaaqadiis runta idiin sheegaya maadaama aan qof aad u xamaasad badan aad waxa weeye riski taker u ah aad u dadaal badan aan isu arkayay ama aan isku qiimeyn karayay waxaan maray istiraatiijiyado ku dhow ilaa 10 istiraatiijiyadood waxaan isticmaalay almost indicator walba oo suuqan la isticmaalo waxaan isticmaalay market structure walba oo suuqan la isticmaalo waxaan isticmaalay wax walba oo istiraatiijiyad lagu sheegi karo xaqiiqda markaan sheego haddaan emailkayga hadda soo daabacaan istiraatiijiyadaha ku gadan jiray istiraatiijiyadda ugu yar waxa igu baxaysay $150 u yar oo weliba 2 bilood ama bil ah ama 3 bilood ah istiraatiijiyadii u badnaydna waxay ahayd mid aanu ka bixinay aniga nin saaxiibkay ah oo min 1300 oo aan rabnay markaa inuu isaguna mentorshipka soo galo anna aan soo galo kadibna anagu aanu isla wadno 1300 bay naga qaadatay oo bishiiba waxay ahayd lacag 250 ah marka 5 bilood 6 bilood baa iyadana waqti geliyay waxaan kaloo waxa weeye lacago aad u fara badan ka bixiyay signals inaan signal qof ka qaato akoon dhowr $100 intaan ku shubto signalka aan isku dayo inaan ku geeyo 10,000 10,000 20,000 30,000 xaqiiqda baaridaas dheer way ii shaqo weeyday 2 years wax ku dhow igu qaadatay inaan profitable noqdo 2 years ayaan waxa weeye maalin walba istiraatiijiyad gaar ah iyo maalin walba aqoon gaar ah iyo maalin walba waxa weeye wax gaar ah tijaabinayay waana wax bini aadam lagu yaqaano haddii aadan anigu wax soo tijaabin weligay ma discover garayn istiraatiijiyadan marka maanta waxaan halka idinkula wadaagayaa wax aan u bixiyay nidaam ama istiraatiijiyad oo macnaheeda ama magaceedu uu yahay luqadda shumacyada suuqa sarifka lacagaha qalaad probably dad badan may maqlin dad badan way ignore garayaan shumacyada laakiin waxaan rabaa intaan idinkula wadaago idinkana sheekeeyo haddii ilaahay ka dhigo wixii aan u soo joogay iyo waxyaalihii aan ma garanaysaa aan intii u badnayd aan faa'iiday waayo dad badan waxaa jira wax badan faa'iiday wax badan ka horeeyay wax badan bartay at the same time-na haddii aad ka baratid waxyaalaha ay barteen ama ay kuu sheegaan ay wax kuu qaban lahaayeen mar hore khasaare badan oo aad gashay ama wax badan oo aad jabtay ama waxa weeye minus badan oo kugu dhacay aad kaga raysan lahayd marka waxaan rabaa qof walba oo muuqaalkan daawanaya in ugu dambeyn meesha u dambeysa uu faallo ka bixiyo waxyaalaha halkan aan ku sheegi doonana oo waxyaalo personal ah oo waxyaalo khibradeyda aqoonteyda backgroundkayga waxbarashadayda dadaalkayga iyo haddii ilaahay kuu roon yahay maskaxdayda ideologygayga logic waxa ii noqday ka dambeeyaan marka qofna ma khusayso qofna kuma khasbana inuu ka tago qofna kuma khasbana inuu qaato okay waxa istiraatiijiyada iyo waxa nidaama iyo waxa indicators ah meel ayaan ka tuuray waxaan bartay waxa loo yaqaan forex family niman la dhaho ayaan ka bartay keliyaal ah luqadda shumaciyada suuqa sarifka lacagaha qalaad waana istiraatiijiyada u fudud xaqiiqatan intaan suuqa arkayo istiraatiijiyada u fudud waliba markaa news ku dabaqdid sidoo kale aad kusii dabaqdid waxa loo yaqaano fundamentalska inaad fahamtid aad kugu qurux badnaan doontaa iyo inaad fahamtid sidoo kale suuqa xilliyadu furmo xilliyadu xirmo xilliyada volume ku jira xilliyada suuqa aan la gelin xilliga la iska ilaashiyo beri London maxaa dhaca beri New York maxaa dhaca New York open muxuu yahay London open muxuu yahay and so on okay istiraatiijiyadan simply waxay ku sheegaysaa waxaad eeganaysaa waxa loo yaqaano support iyo resistance way xaqada horta inta marka casharada ku dhex jirtid waxa laga yaabaa inay wax badan kula noqdaan laakiin concept-koodan ku soo koobiya tusaale halkan oo kale waxaan dhahayaa waa resistance kaas waa calaamadsanaya u fiirso calaamadsanaya suuqan halka waa laga ceshay this area-na waa laga ceshay laba rejection uu sameeyay candle-kan xoog ku dhaafay korkiisa ku xirmay waxaan eegayaa markuu korkiisa ku xirmay waxa left ka xiga marka maybe left ma dhawa left waa kan yaa left markaan eego waxaan arkayaa inuu leftigu yahay clean traffic waxaan iska ilaalinayaa bidixda fog in ay noqoto waxa loo yaqaano inay rejections ugu yeelato baan iska ilaalinaya okay macnaha halkan hadduu suuqu dhaafo wuxuu tegi doonaa halkaas sababtoo waa clean traffic soo ma jeedid okay maxaa dhacay candle-kani oh no okay yes
okay shumacani wuxuu ku xidhmay marketka resistance-kayga dushiisa ama level-kayga waxaan dhahayaa shumaca ku xiga hayga ha jebiyo wiilka hoose muu qaadan hayga ha jebiyo hayga markuu jebiyo stop loss-kii waa candle-kii hore wuu igu yara badan yahay 30 minute-kaan u eegayaa waxaa laga yaabaa inuu stop loss-ku ilaa iyo area-da noqdo meelahan uu noqdo sometimes waxaan sameynaa waxa loo yaqaano risk management oo lagu dabaqayo candle-lada iyo laakiin intriga hadda ku tusaya shumacan maadaama left kelin yahay korna uu ku xidhmay momentum-kuna bullish yahay waxaan rajaynayaa inuu suuqan ii gaaro resistance-ka koowaad 47 bib baan ka qaadanaya okay soo soco waa xilli ma laakiin xilligu jabsanaya eeg waa 12 subaxnimo 12 subaxnimo waxaa jira waxa loo yaqaano London Open Volume soma marketka suuqa London baa furma okay suuqan oo kale isagana waxaan ku qaadan lahaa waxa loo yaqaano in sidoo kale oo candle-kani u fiirso shumacan suuqani waa baxay maybe move-kani waa idhaafay waa labadii habeenimo ma jeedin this one waa noqday kan resistance wuxuu guduhu ku noqday bearish ku xidhmay supportigayga hoostiisa laguma xiran korna waa laga soo reject gareeyay kaalka markuu bearish ku xidhmo ayadana waa intay labaad aan qaadano waxa la dhahaa onion belay uu badan yahay marka casharada joogtay si aad wax badan uga fahanto laakiin halka 1 minute 2 minute 3 minute baan kusoo koobay intriga marka qaato ilaa iyo waxaan eegayaa laftiga meesha aan buuxin karo wigan aan buuxin karaa ugu dambeynna supportiga aan buuxin karaa ma rabo suuqa inaan iska sii hayo waayo meel walba oo rejection oo support ah suuq waa ka reject gareeya meel walba oo resistance ana waa ka falceliya okay supportigaas aan eeganaya this one waxaan u eegi waayay waa minor laakiin this one waa major sababtoo ah waa laba jeer laga ceshay kan laakiin hal mar laga ceshay marka waa dul qaadanaya suuqan waa baxay in badan markuu isiiyay TB almost taabtay wuxuu sameeyay haddana soo noqday intriga uu ku soo noqday and then waa sii socday marka halkaas oo kale 69 oo kale stop loss-kaagu muxuu noqonayaa stop loss-ku wuxuu noqonayaa marka intriga qaadatid oo lowga ka qaadatid uu sal yahay candle-kii ka horeeyay highgiis okay u fiirso waa shumci ka horeeyay highgiis waayo sida caadiga ah suuqu markuu trend sameeynayo trendka anigu kama soo saaro waxa loo yaqaan market structure good oo weyn waxaan ka soo saaraa candle structure salahan markuu trendku bearish yahay waa in shumacaygu lower low sameystaa candle-kan high buu leeyahay low buu leeyahay higher low buu leeyahay lower low buu leeyahay higher low buu leeyahay lower and so on saas ku soconaya marka ayadana waa intaa haddana waxaan eegayaa xilliga aan trade garaynayo inay volume leedahay eeg haddana waxaa sii dhacay intriga hore hadda arkayseen soo ma aragtaan kii hore oo sell aba arkaysaan halka meelaha u fiirso halkan soo support maaha strong support waaye maadaama rejections badan la sameeyay maxaa dhacay u fiirso waxaa dhacay intrigan kale candle-kan hoos buu ku xidhmay hoos haduu ku xidhmay this one lowgiisu jabiyay haddii lowgiisa jabiyay wuu fiicanna soo samayso sometimes high-giisa keeni karaa current candle high-ga waa stop loss-ka keeni karaa marna stop loss-kayga macquul ah oo candle-kii ka horreeyaan keenaya marna stop loss-kayga aad u badan oo wuxuu noqonayaa inaan candle-ka hadda socdo aan intri ka qaadanayo aan high-giisa dhigo shumcan oo kale markuu lowga jabiyo aan galay target-kayga waa xagee maaha ilaa all the way down waa halkan 24 bib baan risk gareeyay 34 bib baan ka helay waa kan marka runner yaraan sii deynay markuu eridan gaaro qayba xiraya break even suuqiga keenaya inta ka hor dambe sii deynaya ilaa uu iga saarayo ama aan meel fiican wax kaga qaato hadii ilaahay ka dhigo tagayo marka hadii aan tagno saan euro USD oo kale euro USD hadaan tago move-ka u dambeeyay okay move-ka hadda maalinta deeyta aan ka faa'iideysanay jimcihii move-kan aan ka qaatay eeg u fiirso move-kan oo kale eeg mar waxaa jirta suuq uu sameeyo move xoog weyn uu supportiga ay ku dhaafo ani waxaan rabay marka aan sugayay candle-kani inuu hoos ku xirmo hoos haduu ku xirmo inaanu fogaan laakiin hadda hoos markuu ku xirmay kan ku xiga lowgiisa ma jabin kan ku sii xiga baa lowgii labadii looba jabiyay isku beegan soma stop loss-ka marka muxuu noqonayaa 19 markuu iga yara tagaya interest xaadisna waxa jira loo impulsive entry u fiirso impulsive-ku waxa weeye suuqii halkii aad sugi lahayd inuu hoos kugu xidhmo sugi maysid markuu madaxa la soo baxo ayaad gelaysaa waa intriga ugu khatarta badan oo ugu risk badan yahay oo ugu khasaare badan yahay laakiin mar wuu shaqeeyaa sababtu uu shaqeeyna waxa weeye halkii suuq uu ka tagi lahaa ayaad qabanaysaa intriga marka waxa weekiskan laftiga marka la dhaafay lafti waxa u jeedaa clean traffic haddii areadan laga celin waayo suuqa xagee laga celinayaa target kalaad waa kan u fiirso marka walaalkay halka way TB1-kaygu TBT-gayguna waa halka waa meesha la taaban doono oo fake out course laga sameyn doono okay maxaa dhacay I think Discord-kaygan kula soo wadaagay ardayda 15 minutes kale markaan tago 15 waxa moodaa inuu stop loss-ku hal candle oo high dheer yahay uu sameystay 5 minutes oo kale waxa ka dhacay hadaba
ayagaa suuqan isaga isku xiran intriga aan qaadanayo waa candlekan 5 minute kan u horeeyo way oo xoog weyn markuu hoos tegay kani lowgu jabiyay lower low sameeyay wuu soo noqday bullish ku xidhmay bullish markuu ku xidhmay waxaan iska ilaalinayaa shumacan ku xiga inuu hayga jabiyo hadduu haygiisa jabiyo oo higher high ugu soo sameeyay xilli folian bay ahayd New York Open bay ahayd saddexdii barkii galabnimo waxaan iska ilaalinayaa in candlekani casaanka ah oo 5 minute ka uu hayga jabiyo ma jabin 1 hour ka iigi hadaba fiirso alexa qurux badan tahay 1 hour maxaa dhacay sidii uu ku soo baxay bearish buu ku xidhmay markuu 1 hour kan bearish ku xidhmay waxaa yiri wax business ah kuma le inuu gudaha ku soo laabto iska break even ka area markuu soo gaaray half baan qaatay markuu TB-ga guud ku dhacayo 65 bibana halfkii kala qaatay shumacyadu marka waa saaxiibka ugu fiican haddii aad fahamto suuqan ka cilbaxayso haddii aad shumacyada fahamto suuqan waad ka cilbaxaysaa waxaad manage garan karaysaa riskigaaga shumac walba oo meesha yaalana qisadiisa ayaad akhrisanaysaa shumacu marka uu sidan oo kale yahay wig dheer uu soo samaystay soo reject gareeyay halkan ay ahayd meel laga reject gareeyay oo zone intaas oo dhan waa zone day u fiirso muxuu sameeyay soonkii uu soo galay rejection xooga uu sameeyay uu isfilip gareeyay halkan ma ka qaadatay macnaheedu waxay ku sheegaysaa in suuqa kor laga soo ceshay laga soo reject gareeyay sidoo kale waxay ku sheegaysaa in suuqan uu leeyahay clean traffic lefty sidoo kale wuxuu ku sheegay in volume badan jiro xilliga volume-ka aan joogo oo suuqa qaadanayna waxay ahayd New York Open waa suuqa adduunka ugu fiican bearish markuu ku xidhmo ma expect garanayo suuqan inuu ugu soo laabto all the way down buu tagay marka that's why waxaan u iri istiraatiijiyada easiest strategy waxaana way best strategy waayo waxaad ku garanaysaa inay best tahay haddii aan khaldanahayna ii cadee prove me wrong muuqaal soo samee ii soo dir waa ka falcelin doona strategy inuu fahanta waxaan ku sheegayaa 2 sano ku dhawaad hadda waxaan wadnay live stream inta aan suuqa soo galo anigoo wax qish asidan anigoo suuqa sii arki karin mustaqbalka anigoo live jooga Facebook live YouTube live TikTok live haddaan doono joogo ayaa waxaan qaadanayaa trade buy ah ama sell ah waxaan dhahayaa qof walba indhihiisa ku arko khiyaam ma jirto before iyo after ma jirto caalamka waxa waa laga tagay caalamka mar hore ayaa u dambeysay wax daha dabadiisa la isaga yeeriyo signals la isu diro before iyo after abti ituso itaabsi caalamka shaqeys akoonkayga live ka ku tuso loogadiisa live ka ku tuso lacag inta iigu jirto ku tuso riskiga aan ku qaadanayo ku tuso ku dhow $1 baan ku suuqan ku risk garanaya 2,000 baan ka rabaa ama 3,000 adigoo u jeeda aan 2,000 3,000 gaaro adigoo u jeeda aan waxa way profitkayga secure garaysto hal istiraatiijiyad ba caalamka inta la tijaabisay Soomaalida aynu Soomaalida u nimaadno istiraatiijiyadaasina waa hagarlaaw istiraatiiji waa luqadda shumacyada suuqa sarifka lacagaha qalaad haddii qof intaas oo kale u sameeyay jiro fadlan hala ii soo share gareeyo qof akoonkiisa soo bandhigay risk ku qaadanaya soo bandhigay baydiisi ay u jeedid selkii ay u jeedid intuu ka helaya ay u jeedid hal maalin ma aha waliba bil usbuuc 6 usbuuc 10 usbuuc 5 bilood sanad 2 sano waday ma jirto haddii la soo helo waxa weeye istiraatiijiyada kale covidan u dhigaynaa iyadaan u wareegi doonaa inta laakiin intaas aanay jirin annaga kaliya aan wax proof gareeno annaga kaliya aan waxa weeye dadka tusayno run ah xaqiiqatan waxa weeye waxay noqonaysaa the best number 1 the one and only way noqonaysaa istiraatiiji kama rabo kama ugumana socdo in aan adiga kugu khasbo in aan kugu qalqaaliyo waxaas oo dhan indhahaaga ku soo arag aniga waxay tustaa smart money concept market structure demand and supply bank robbers kuwa bangiyada dhaca muxuu ahaayay indicator trading anything istiraatiijiyad kastoo Soomaali isticmaasho sida aan wax u cadeynay cid u cadeysa soo sheeg ma jirto wax kale maaha inaan dadka ka aqoon badan nahay maaha inaan ka geysanahay maaha inaan ka wacyi gelin badan nahay maaha kaliya waa inaan ka istiraatiijiyad saxanahay suuqan shumacyo ku socda haddii aadan shumacyadaas fahmi karin haddii aadan shumacyada waxa weeye waxay sheegayaan akhrin karayn xaqiiqatan waxa kugu adkaanaysa suuqan inaad ka shaqeysid last 3 years waxa aan wadaa oo u jeedaa waxa weeye kaliya in aan shumacyada fahmo waxa aan ka sameeyay boqolaal lacag ah kumanaan lacag ah 10,000 oo lacag waxaan ka soo bilaabay inaan kala soo baxo bishii $100 $300 waxa aan gaaray inaan kala soo baxo $30,000 $17,000 $24,000 dhammaan profit ah marka wax hadal meesha ma jiraan
adduunka hadal waa laga tegey haddii wax aad haysid soo bandhig haddii wax laguu soo bandhigayna qaracda iyo asraarka iyo indha iska tuurka iska daa wax baro waxa weeye focuska waxaa saartaa in aad wax runta a qaadatid wixii khiyaali ana maskaxdaada aad ku shaandhaysid iska reebtid marka istaraatiijiyada saas ku fududahay waxaa kaloo lasoo akrinaya waxa loo yaqaano forecast factory newska la iska soo eegaya qaabka newsku impact gareyn kara la eegaya newska lagu tarir gareyn karaya and so on waxayse u baahan tahay inaad good disciplined trader tahay inaad taqaanid waxa aad waxa way ku tarir gareynaysid inaad koorso qaadatid eeg inta aan ku sheegay kuwa maanta sidii doon akoon furo waxa way waxba fahamtay interiyadii ba fahamtay no interiga intan waa ku fahmi kartaa waa overview waa introduction page book marka soo qaatay introduction ku 3 page uu yahay buuga 3da page waxay u taagan tahay buuga oo dhan waxa ku jira laakiin macnaheedu ma buuga oo dhan aad koonfur garaysay macnaheedu waxa way inaad horudhac buuga ah heshay 90 page 100 page 200 page waxaas ku jira ayaad horudhac ka heshay kana waa saas oo kale 10 25 hours waxa ku jira ayaad horudhac ka heshay maaha koorsadii iibso weliga ha iibsan maaha nagu soo biir weliga ha nagu soo biirin we don't care kaliya waxa way maskaxdaada ilaahay kugu deeqay ku kala saar wixii run ah maxaa been ah maxaa cad maxaa madow ah maxaa waxa way xaq ah maxaa baadil ah yaa run sheegay yaa been sheegay and so on marka saaxiibayaal I hope inaa wax badan ka faa'iideen I hope inaa istaraatiijiyada suuqa ugu fiican luqadda suuqa sumcada suuqa sarifka lacagaha qalaad aa ka heshay ku tarir garaysay lacag ku samaysay waa proof gareynay arday lacag ku samaysay waa proof gareynay arday zero iyaga aan noo yimi oo 9,000 la baxay waa proof gareynay arday aan weligood bilaabin intay noo yimaadeen oo suuqa ay ka bilaabeen tradingka hagar laba academy oo kale ay iyaguna waxa weeye meesha u sareysay gaareen oo lacag la soo bixeen kuwa aan weligood lacag la soo bixin ay ku guuleysteen dhamaana waa profit wax hadal ama live accountiga aragteen waraysiyeedii aragteen youtube ka dib ugu laabtay marka intaas waxay iga tahay in aad waxa weeye u share gareysid la wadaagtid qof walba isleeyahay maanta suuqa uu fahmi karaa uu ka shaqeysan karaa way waxaan ognahay dad badan oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya suuqa inay ka shaqeysan karaan laakiin aanay haysan wadadii saxda ahayd dad waxaa jira extraordinary ah dad waxaa jira khibradooda aqoontooda maskaxdooda way aragnimadooda si u sheekeynayaan say risk management u sameynayaan say wax u baarayaan say wax u akhrinayaan buugtii akhriyaan muuqaaladii daawadan ay incredible tahay haddana lacag zero ka ah marka adduunka lacag ay u joogna lacag rabnaa inaan sameeyno lacag aynu u baahannahay si aynu wax u qabsano xataa si ay wax u noqoto lacag u baahan tahay marka si aad lacag u samaysid wixii run ah doon wixii shaqeynaya doon wixii aan ku shaqeynayna iskaga tag intaas aan ku soo gabagabeynaya saaxiibayaal maalintu haydin wacnaato soo qaad wanaagsan